أخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qabanqaabiyayaasha iyo marti sharafka dadkan walaalaha meesha fadhiya xuduurka sharafta badan walaalayaal maantiin waad mahadsantihiin. sida la sheegay waa xaflad isugu jirta laba nooc oo si markii loo fiiriyo xoogaa yaro isdiidaya micno ahaan oo mid marna la yidhi waa soo dhaweyn dowladdanadii Soomaaliya oo dowlad markaan leenahay labo hadda hal cunsur baa hadda noo dhismay laakiin labadii kale way noo joogto hadda shacab iyo sulda siyaasiya wax la yiraahdo iyo deegaan ama dhul intaaba dowlad la yiraahdo marka hadda sulda siyaasiya un baa noo dhisantay oo kasoo guurnay mid ka horeysay marka taasoo dhaweynteedii iyo farxadeedii waan ayaan meesha u joognaa iyo arrintii abaaraha oo barwardeeda ahayd. walaalayaal maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre waan soo dhaweyneynaa si kal iyo laabaan u soo dhaweyneynaa. ilaahay ha noo barakeeyo, ilaahay ha nooga dhigo hoggaan wanaagsan oo Soomaalida anfaca. waxaa dhacay oo arrinta kaleeto ay tahay abaar baa jirta Soomaaliya meel nabad qabta kuma jirto waa kala daran yihiin. waxaan maqlaynay geel laga soo qaxiyay meel la yidhaha berbera oo jawhar agaheeda jooga baan maqlaynay. waad fahmi kartaa marka culayskaas intaa uu la egay xoolaha intaa lasoo qaxiyay. waxaan jeclahay hadalka dabcan inaan kusii daaha ma rabo. walaalayaal abaaraha London baa waxaan maqlaya yar muslim oo reer Pakistan ah oo yiri aniga Soomaaliya abaaraha ka jiraan wuxuu aruurinayaa ilaa hadda soo far wuxuu helaa leeyahay 100,000 oo pound. wuxuuna yiri inta Soomaaliya abaartu ka jirta waan soomanaana aniga lacagna waan aruurinaa waana soomaya maalintii ilaahay baan u baryayaa. marka dareenkaas oo kale in nala ka helaan u baahanahay anaga waxyaabaha kale inta meel iska dhigno markaan waxay taagan tahay human dignity bini aadan sharaftiis in la badbaadiyo iskaba dhaaf muslim iyo Soomaalinimo laakiin human being baa hadda la taagay arrinta in xoogga la saaro. walaalayaal haddaan arrintii kale oo ku soo laabto dowladda dadka Soomaalidu qof walba waa siyaasi qof walba waxbuu indheeyaa. markii doorashada iyo ololayaasheeda lagu jiray Farmaajo wuxuu haystay shacbiyad xoog leh oo shacabka Soomaalidu taageero aad u weyn oo ka haystay laakiin probability-ga uu madaxweyne ku noqon karo marka la fiiriyo waxa meesha ka jiray way yaraad runtii. ilaahay baa keenay kacdoonka ilaahay barakeeyo ahaa. kacdoomadana naguma cusba waad ogtihiin 2000 kacdoon baa Soomaaliya ka dhacay. madaxweynaha la doortay Cabdiqaasim nin la yiraahdo ayaa madaxweyne loo doortay. kacdoon aan caadi ahayn soo dhaweyn aan caadi ahayn buu la kulmay. waxaa la yiraahdaa lacnad baa waxay ka raacday yiraahdaan markii la doortaan gabar oo Mareykanka safiir u ahayd baa salaam u soo taagtay markaas uu diiday. lacnada ugu horeysa ka raacday meeshaas. ما يعني anyway hadda eragaas in la fahmaan rajeyna waxay dhahaan waxaas lacnadii hebela ku dhacday ama qolada siyaasiyiinta iyo waxay taxliiliyaan sida luqad ahaan erayaasha isticmaalaan يعني اوكي marka leetana wuxuu yimid waqti ciid ku soo aaday dad dhowr kun oo qofood haddana salaadii ka bixiyay meelaha laga gala meelahaas baa ka mid ahaa. maxkamadihii kacdoonkoodii baa ku soo xigay 2006 maxkamadihii ayagana waxay sababsadeen waa taqaanaa. waxaan aragnaa hadda kacdoon kaleeto oo xoog badan oo Soomaalida aad u malaysa qalbigoodu inuu mideeyay oo ku midoobeen waa midka hadda jira. marka midkan walaalayaal maaragtay caadifadu wax ma dhisto waxay dumisaa maahan
cadifadu wax ma dhisto marka inaan aan dhahno u sacabtuno oo maalmo kadibna aan maaragtay liifada tartiib loogala baxo waxba micnaa ma leh marka taana aan iska ilaalino walaalayaalow waxaan u soo joognay ama taariikh ahaan aan haynaa midnimadu waxa ay goyso iyo waxa ay tahay midnimada Soomaaliya waxa ay tahay taariikh ahaan waan maqalnay ama waan u soo joognay waxaan kale oo goobjoog ka ahayn furqada iyo kala tagga iyo maaragtay nehtooxsiga iyaduna mushkiladda ay leedahay waxaan rajaynaynaa inaan wax kala fahamnay oo markaa aan naqaano dhinacaan u dhaqaaqno anigu hadalka ku sii badan maayo anigu waxaan ahay dadka oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ama itijaaha dhinaca wax loo wado qof walba side angle buu ka leeyahay aniga meel aan wax ka fiiriyaa jirta waxyaabo aan dhibsanaa jira marka madaxweynaha markii la doortay ayaa waxaan idhi ma dhilayo meel baan iskaga falay madaxweyne Farmaajo dadku waa tay farxeen oo faysta bay ku jiraan oo fursad bay arkayaan fadligii rabbigeen iyo ficil bay sugayaan waxa aad fali doontana way u fiirsanayaan oo inta aad jid furayso ama aad fashilmayso فالك قري مينو فدولنا ده هذا الكيف يعني لو فضودان ما ولا سوري وحقات سمايسان مدحوينها مرفع الله سو قادنايا تيمكو ugu sareeya asagu fawdadii wadankeena addis baa falkinaysa madaxweyne ka fiirso federaalka qudhiisana madaxweyne ka fiirso famil dawlad samaystana madaxweyne ka fiirso fiicnaantaada barkeedna fudayd baa qari doonay dadku faaqidayaan madaxweyne ka fiirso afrikaanka faceena fallaaraha ka imaane marka aad la faqayso hoos inaad fiirisaana madaxweyne ka fiirso fasaadkii lacageed iyo inaad reer la faqdaana madaxweyne ka fiirso marka inahaas waxay iga ahay dardaaran meelaha aan aniga nacabahay in aan rajada aan ka qabo in laga soo geli karo ayaa meelahaas ka mid ah inta taas aan ka baxaya walaalayaal